waxaa gabi ahaanba la soo gabagabeeyay xil ciyaareedka Premier League ee 2019-2020 waxaana kulamadii 38 ay halka mar wada bilowday ka soo baxay natiijooyin saameyn la yaab leh ku yeeshay tartamada Yurub iyo kaalmaha horyaalka heerka labaad loogu dhaadhacayo. Kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa u soo baxay tartanka xiisaha badan leh ee Champions League waxaana murigu ku hartay kooxda Leicester intii aanu koroono xil ciyaareedka joojin kaalinta saddexaad dhibco fiican ugu jirtay. Chelsea ayaa meel iska saartay Wolves halka Man United ay booskii si rasmi ah ugu riixatay Leicester waxayna ahaayeen kulamada ugu xiisaha badan ee maalinta xil ciyaareedka ugu dambeysay la ciyaaray. Kooxda koobka Premier League ku guuleysatay ee Liverpool ayaa marka la fiiriyo guul soo laabasho leh ku dabatay Newcastle oo gool ka hormartay waxayna Reds xil ciyaareedka ku soo xiratay guul iyadoo 99 dhibcood shaqaysatay. aynu ka bilaawno kulankii Wolves iyo Chelsea 45 daqiiqo ee qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaaday barbaro gool la'aan laakiin Chelsea ayaa sameysay mucjiso la yaab leh intii lagu jiray dhowr daqiiqo oo ciyaarta lagu daray waxayna Blues waqtiga nasashada abuureen jawi aan rumaysan karin. daqiiqadii 46 Chelsea ayaa la timid goolkeeda waxayna Wolves wadnaha ku jirtay wuxuuna ahaa gool cajiib ah oo ka yimid daayarka saameynta badan ee xil ciyaareedkan Mason Mount ka uu jamaahirta kooxdiisa iyo Frank Lampard neefta ka soo saaray wuxuuna Mount ciyaarta ka dhigay hal iyo oo Blues hogaanka ciyaarta kula wareegtay wuxuuna ahaa laad xura oo firikiga. daqiiqadii 48 qaybtii koowaad alla maxay waali ahayd Giroud ayaa Chelsea u keenay goolka labaad ee sida la yaab kale ula timid dhamaadka qaybtii hore waxaana caawinta goolkan sameeyay daayarka Wolves dalooliye ee Mason Mount. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 Chelsea si la yaab leh hogaanka ugu qabatay waxayna ciyaartooyda Blues garoonka ka baxeen iyagoo ogaaday in Manchester iyo Leicester ay tartamayeen ee barbaro gool la'aan ee nasashada ay ku baxeen. markii la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ee Chelsea soo laabatay iyadoo mas'uuliyadda ugu weyn ay ka saarneed kaliya inay hogaanka ciyaarta ilaalsadaan isla markaana ay raadiyaan gool kale marka aysan culays dareemaynin. Wolves ayaa dagaal weyn ugu jirtay inay hesho xalkii ay ku dhaafi lahayd daafaca Chelsea balse ciyaarta qaybtii dambe ayaa noqotay mid adag oo ay Blues si adag u ilaashanayso hogaanka. Wolves ayaa gabi ahaanba ku fashilmatay inay ay ku soo laabato ciyaarta waxayna taa Blues ka caawisay inay guul 2-0 ay ka gaartay waxayna Blues kaalinta afraad kaga baxday Premier League iyadoo Blues xaqiijisay booskeeda UEFA Champions League. Leicester City iyo Manchester United iyo Leicester wuxuu kulankan u ahaa guul ama geeri iyadoona labada kooxoodba ay haysteen fursad ay ugu soo baxayeen Champions League balse waxay tartan kula jireen Chelsea oo qaybtii hore kulankii Wolves 2 gool hogaanka ku haysatay. Manchester waxay kulankan ugu baahneed barbaro kaliya si ay ugu soo baxday Champions League laakiin Leicester ayaa ku qasbaneed in ay guul gaarto balse ciyaarta ayaa ahayd mid aan waxba la isku harin oo lagu halisla goosanayay. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa noqotay mid gool la'aan inkastoo ay Leicester gool u dhalin gaareen Ighajo iyo Ndidi. goolaya Digeya ayaa qaybtii hore sameeyay qalad weyn oo sabab u noqon gaaray in Leicester ay gool dhaliso waxaana jiray walwal haysa jamaahirta United oo ka cabsi qabeen in Digeya uu qaladaad xun sameeyo laakiin qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kulnay barbaro gool la'aan laakiin Manchester iyo Leicester ayaa waqtiga nasashada ogaa in Chelsea ay la tartamayeen 2-0 hogaanka kaga haysto Wolves. qaybtii labaad ee ciyaarta Leicester ayaa ku jirta dagaal waaliya waxayna United u ahayd mid cadaadis ka dareemaysay weerarka Focus balse Red Devils ayaa baadigoob ugu jirtay inay hesho fursad ay Leicester xaaladda ugu sii xumeynayso. Leicester ayaa noqotay koox weerar badan ku ciyaaraysay iyadoo Rudiger isbedel sameeyay laakiin fursad luminta weerarka Focus ayaa Man United waxtar badan u ahayd. daqiiqadii 69 Manchester ayaa rigoro lagu abaalmariyay kadib markii Evans qalad ku galay Martial kadib markii uu Gujujuri kubadila lumiye waxaana Focus loo dhigay rigore wadnaha hoos u gooyay. daqiiqadii 71 Man United goolkii qiimaha weyn lahaa ee rigorada u siixay Bruno Fernandes ka uu jaha qaldan u diray goolhayaha Leicester ee Schmeichel waxayna ciyaarta noqotay 1-0 oo Manchester ku heshay gool dhulka dhigay kooxda Leicester. Manchester ayaa lagu abaalmariyay rigoradii 14aad ee xil ciyaareedkan Premier League waana tiradii rigooryaal ay abad hal koox Premier League uga badnaa. daqiiqadii 76 fursad badbaadin la yaab leh goolhaye Digeya ayaa gool badbaadin weyn ka sameeyay Barnes oo kubad meel dhow kaga taabtay waxayna Leicester sii waday khasaaradii fursadihii waaweynaa. Manchester ayaa bixinaysa fursado ee Leicester si buuxda ciyaarta ugu soo laaban lahayd balse cadaadiska ciyaarta ku haysatay xidigaha Leicester ayaa diidaysay inay degnaansho gool ku raadiyaan. dhamaadkii ciyaarta waxaa kaarka caslo taagay daafaca Leicester ee John Evans laakiin irbaqsidii ugu dambeeyay Jesse Lingard ayaa niyadjabka Leicester israaciyay wuxuuna dhaliyay goolka labaad waxayna ciyaartu ku dhamaatay 2-0 oo Manchester ku garaacday Leicester waxayna sida United kaalintii saddexaad ugu soo baxday UEFA Champions League. Club Newcastle Jurgen Klopp ayaa mar kale fiiriyay gabi ahaanba ku soo jirtay
shaxweerar cusub isagoona aanu shaxdiisa ku soo bilaabin ciyaartoydiisa koobka Premier League ka soo caawiyay ee Salah Mane iyo Firmino. Daqiiqadii koowaad ayaa si la yaab leh ciyaarta ugu bilaabatay kadib markii Newcastle ciyaaryahan Kyle uu dhaliyay goolka furitaanka 30 daqiiqo oo kaliya qaatay wuxuuna ahaa goolkiisii ugu degdega badnaa xilli ciyaareedka Liverpool laga dhaliyo. Kyle ayaa goolka ku dhaliyay kubad caawin oo ka helay xidigii hore ee Liverpool Chelsea waxayna ciyaartu noqotay 1-0 oo Newcastle hogaanka kula wareegtay. Daqiiqadii 38 Liverpool ayaa ciyaarta dib ugu soo laabatay kadib markii daafaca dhexe ee Van Dijk uu ka faa'iideystay kubad caawin oo ka helay Chamberlain isla markaana uu kooxdiisa Reds u dhaliyay goolkii barbaraha. Liverpool inta badan kubadda maamulaysa ayaa qaybtii hore ku fashilmatay inay wax gool dhaliso waxaana lagu kalnaysa barbaraha hal iyo hal. daqiiqadii 59 Liverpool ayaa gabi ahaanba natiijada ciyaarta dhinaca kale u dhigtay kadib markii Origi uu dhaliyay gool cajiib ah isagoona kubadda ka helay Robinson laakiin qaabka Origi ugu yaabsada goolahayaha ayaa noqotay mid cajiib ahayd waxayna ciyaartu noqotay 2-1 Reds hogaanka ku qabatay. daqiiqadii 64 Klopp ayaa ciyaarta soo geliyay Salah, Firmino iyo Mane wuxuuna saaray Origi, Minamino iyo Chamberlain. daqiiqadii 89 Mane ayaa sii kordhiyay dagaalkiisa abaalmarinta xidiga sanadka ee Premier League ugu fiican wuxuuna dhaliyay goolka saddexaad ee Liverpool sida rasmi ah ugu xaqiijiyay sida guusha xilli ciyaareedka ku soo xiratay. Mane ayaa goolkan ku dhaliyay kubad caawin oo ka helay saaxiibkiisa ay ka soo wada baxeen ee Firmino waxayna ciyaarta ay noqotay 3-0 ee Reds hogaanka ciyaarta ku haysay. ugu dambeyn ciyaarta ayaa 3-1 ku soo dhamaatay oo guul soo laabasho ay ka gaartay kooxda Liverpool Newcastle waxayna Reds ay shaqaysatay 99 dhibcood oo Premier League ah. Arsenal iyo Watford. Arsenal ayaa shaqadeedii qabsatay qaybtii hore ee ciyaarta waxayna 3 gool ay u qobayeen kooxda Watford iyadana Aubameyang uu helay fursadii uu ku doonayay si uu maalinta xilli ciyaareedka ugu dambeysay uu sii laba jibaaro difaacashada kabta dahabka. daqiiqadii 5 Aubameyang ayaa daafuray goolasha Arsenal wuxuuna xaalad xun ku abuuray kooxda martida ahayd ee Watford isagoo ciyaarta ka dhigay 1-0 Gunners xilli horeba hogaanka ciyaarta ay kula wareegtay. daqiiqadii 24 Arsenal ayaa heshay goolkeeda labaad wuxuuna goolkan u siixay xidiga saameynta badan la soo baxay markii uu fursad buuxda u helay Kieran Tierney waxayna ciyaartu noqotay 2-0 oo Arsenal hogaanka ku dheereysatay. daqiiqadii 33 Arsenal ayaa keensatay goolkeeda saddexaad waxaana goolkii labaad ee kulankan rigoor ahaa dhaliyay Obi oo natiijada ka dhigay 3-0 oo Gunners ay ku duwaneysay Watford. David Luiz ayaa noqday daaficii ugu horeeyay ee taariikhda Premier League hal xilli ciyaareed laga dhigay shan rigoore kadib markii Watford iyo fursad gool kulaad loogu dhigay waxaana rigooradan gool ku dhaliyay Troy Deeney daqiiqadii 43 ee dhamaadka qaybtii hore ayaa 3-1 lagu kulanasay. daqiiqadii 66 ee qaybtii labaad xidigii hore ee Arsenal ee Welbeck ayaa goolka labaad ee rajadooda ku soo nooleeyeen ciyaarta ka dhigay 3-2 hogaanka Gunners 3 gool ahaa hal gool lagu soo yareeyay. Watford ayaa dhamaadkii ciyaarta raadinaysa goolkeeda barbaraha laakiin Gunners ayaa guusha faraha ka qaadeen waxayna ciyaartu noqotay 3-2 oo ay Arsenal ku garaacday. kooxaha Watford Bournemouth ayaa ku biiray Norwich waxayna 3 kooxood noqdeen kooxaha horyaalka heerka labaad u dhacay waxaana badbaaday kooxda Aston Villa iyo West Ham oo kulan xiiso lahaa ciyaartooda barbaro ay ku soo dhamaatay. natiijooyin waaliha ayaan ahayd kooxda kubadda cagta Man City 5 gool ku badisay iyadoona ciyaaryahanka lagu magacaabo De Bruyne, Raheem Sterling, Jesus ay goolal dhaliyeen waxaana sidoo kale jirtay in marka la fiiriyo ciyaartooyda iyo qaab ciyaareedkooda ay bandhig wacan ay soo bandhigeen. waxa gabi ahaanba la soo gabagabeeyay xilli ciyaareedkii abad ugu waqtiga dheeraa Premier League ka oo markii ugu horeysay la soo xiray bisha July kadib markii caabuqa corona 3 bilood hakad geliyay. kulamadii ugu dambeeyay xilli ciyaareedka Premier League waxa si rasmi ah u go'aamiyeen dagaaladii lagu ordayo kaalmo muhiim ah oo lagu soo baxayo Champions League, Europe League iyo waliba dagaalkii heerka labaad oo loo baxsanayay. haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa sida lagu kala guuleystay dagaalkii 3 goobood socday Champions League, Europe League iyo kaalmaha heerka labaad. kooxaha afarta sare ku dhameysatay ee Champions League sida tooska ugu soo baxay kooxaha Chelsea iyo Manchester ayaa si la yaab lagu guuleystay kaalmaha 3 iyo 4 ee Champions League loogu soo baxay waxayna soo dhameystireen kooxaha Liverpool iyo Man City oo xilli hore boosaskooda xaqiiqsaday. guusha ee Manchester ka gaartay Leicester kama caawin kaliya inay Champions League ugu soo baxday balse waxay sidoo kale xaqiiqsatay inay kaalin 3 si rasmi ah ugu la baxday kooxda Chelsea. sida darteed waxa horyaalka kubadda cagta ee Champions League u matali doona Liverpool oo horyaalka qaaday, Man City, Man United iyo Chelsea. kooxaha Europe League u soo baxay ama wali u soo bixi kara. Jose ayaa kooxdiisa Tottenham ka caawiyay inay u soo baxaan Europe League laakiin waxa uu caawin ka helay kooxdiisii hore ee Chelsea oo guul ka gaartay kooxda ka sarreysay ee Wolves taa oo hadda booskeeda uu shaki weyn ku jiro waxayna Wolves
inay u soo baxdo Europa League ay ku xiran tahay finalka FA Cup-ka Arsenal iyo Chelsea. Leicester iyo Tottenham ayaa toos u aadi doona. Wolves ama Arsenal ayaa u soo bixi doonta haddii FA Cup-ka ay qaado, haddii kalena Wolves ayaa soo bixi doonta. Kooxda horyaalka heerka labaad u dhacday waa Bournemouth, Watford iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Norwich oo iyadu horay u xaqiijisay inay horyaalka marka la fiiriyo ay ka dhaadhacday. Saadaalin ayaa jirtay oo Bruno Fernandes markuu imaanayay kooxda kubadda cagta ee Manchester United la saadaalinayay inuu bandhig fiican uu sameyn doono xilli ciyaareedkiisa ugu horeeya. Faa'iido weyn ayuuna u noqday, lacag badanna ma ku qarash garayn Bruno Fernandes Premier League. Bruno xilli ciyaareedkii la soo gabagabeeyay waxa uu baal noqotay in saadaasha ay noqotay mid sax ah, iyadoo weliba ayna United hal kulan oo Premier League gool dareysan tan iyo markii uu kooxda yimid Bruno Fernandes. Man U intii uu Bruno la joogay waxay ciyaartay 12 kulan Premier League ah, mana jiro hal kulan ay gool dareyseen. Man U ayaa 7 kulan guuleysatay iyadoo uu kooxdeeda ka tirsan yahay Bruno, waxayna barbar galeen 4 kulan taa oo la micnaa in United gool darro arag dhammaan kulamadii uu Bruno ka tirsanaa. Man U waxay hadda heshay fursad ay ugu soo laabatay Champions League oo ay la'aantii khasaare weyn galeysay, laakiin saadaashay kaalinta saddexaad ee United la sii saadaaliyay markii Bruno Fernandes heshay ayaa si buuxda u dhawooday. dhanka kalena waxaa la bixiyay abaalmarinadii kala duwanaa ee horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ee Premier League, iyadoo marka la fiiriyay abaalmarinada ay urursadeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo heshay abaalmarino la yaab leh. Man City ayaa urursatay abaalmarinada goolaayihii iyo kuba sameeyay xilli ciyaareedka Premier League ugu fiicnaa, inkastoo xilli ciyaareedka ku guuleysan horyaalka Premier League. Goolaay Ederson ayaa ku guuleystay gacanta dahabka ee Golden Glove kadib markii uu xilli ciyaareed ku dhameystay in kulamada ugu badan shabaq nadiif ilaalsaday, wuxuuna garaacay goolaayihii ka horeeyay ee la saadaalinayay. Dhinaca kale De Bruyne ayaa u sharaxan xidiga sanadka ee Premier League ugu fiican, ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta kuba sameeyaha Premier League ugu fiican, waana xilli ciyaareedkii saddexaad afartii xilli ciyaareed ugu dambeysay uu noqday kuba sameeyaha Premier League ugu fiican. Goolayaha Liverpool Alisson Becker oo abaalmarintan haystay ayaa ku fashalmay inuu difaacdo kadib markii kulamadii ugu dambeysay uu noqday mid si buuxda loogu daasanayay goolasha, halka goolayaha Burnley Nick Babe isna fursad weyn haystay uu sheegay inuu abaalmarintan ku guuleyso. Goolaay Ederson ayaa abaalmarinta goolayaha ugu fiican ee Premier League wuxuu ugu guuleystay inuu 16 kulan shabaq nadiif ah la baxay xilli ciyaareedkan, waana markii ugu horeysay oo abaalmarintan uu ku guuleystay. waa markii ugu horeysay goolayaha Man City ku guuleystay abaalmarintan goolayaha xilli ciyaareedka Premier League ugu fiican ee Golden Glove tan iyo xilli ciyaareedka 2014-15 marka uu Joe Hart ahaa goolayihii ugu dambeeyay ee City ee abaalmarintan ku guuleysta. Sidoo kale Kevin De Bruyne ayaa noqday caawiyihii ugu badnaa ee abaalmarintan qaada ka uu qaab ciyaareed waxaana soo bandhigay, waxaana Kevin De Bruyne uu 20 gool oo caawineed uu ku qaaday marka la fiiriyo horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ee Premier League. Kabta dahabka ee goolinta Premier League oo ciyaartoy badan xilli ciyaareedkan ku tartamayeen ayaa gabi ahaanba lagu guuleystay kadib markii la soo gabagabeeyay kulamadii 38 ee xilli ciyaareedka. Goolayaha kooxda Leicester ee Jamie Vardy ayaa rikoor cusub ka dhigay ku guuleysiga kabta dahabka ee goolinta Premier League kadib markii abaalmarintan uu ku garaacay dhammaan ciyaartoydii magaca weynaa ee kula tartamayay. Vardy ayaa kabta dahabka ee goolinta ugu guuleystay 23 gool isagoo 39 sano jir ah, waana ciyaartoygii ugu daada weynaa ee taariikhda Premier League kabta dahabka ku guuleysa. Drogba ayaa haysta rikoorka ciyaartoyga ugu daada weynaa ee ku soo guuleysa kabta dahabka isagoo 2009-2010 kabta dahabka ku guuleysay isagoo 32 sano jir ah. Dhinaca kale Vardy ayaa noqday ciyaartoygii labaad ee Ingiriiska ee kabta dahabka ku guuleysa tan iyo sanadkii 2000, waxaana ka horeeya Harry Kane. Vardy oo kooxdiisa Leicester seegtay u soo bixitaanka Champions League ayaa 30 kulan ciyaareed xilli ciyaareedkan oo booskiisa u soo jireen ayaa murugada isaga meeraya in uu hantay kabta dahabka ee goolinta Premier League. Danny Ings Obi oo dagaalkii ugu dambeeyay kula jiray Vardy ayaa awoodi waayay in Vardy ku garaacaan kabta dahabka iyo horyaalka kubadda cagta ee dalkaasi Ingiriiska ee Premier League, waxayna ahayd arin marka la fiiriyo aad muhiim ugu ahayd. James Milner wuxuu noqday ciyaartoygii ugu dambeeyay ee laba kooxood oo kala duwan kula guuleystay horyaalka wadanka Ingiriiska tan iyo marka magac loo bixiyay 91-92. Reds ayaa soo afjartay 30 sanadood oo ay ka maqnayd horyaalka, waxaana Arbacadii 5-3 ku garaaceen isla garoonka Anfield lagu guddoonsiiyay koobka muddada dheer ay sugayeen. Laakiin Liverpool waxay xisaab ahaan koobka ugu guuleysatay 27 maalmood ka hor, waxaana la sugayay inta ciyaaruhu ka dhamaanayaan iyadoo ugu dambeyntiina kulankii ugu dambeeyay horyaalka ee garoonka
garoonkooda ku ciyaarayeen koobka la siiyey inkastoo aanu 30 sanadood koobka horyaalka ku guuleysanin haddana Liverpool waxa kaliya hal koob dhaaftay Manchester oo hadda ay soo gaareen Miller ayaa guusha koobka ku galay liiska dhifii naadirka ay xidigaha laba kooxood kala duwan kula guuleystay horyaalka waxaana ugu horeeya 10 laacib ee kale ee qaarkood isku koox ay haajireen James Miller ayaa laba jeer koobka la qaaday Man City waxayna ahaayeen xil ciyaareedkii 12 13 ka hor inta aanu Liverpool qaab bilaash ugu soo birin ciyaartoyda labada koox u kala duwan Premier League kula guuleystay waxay Riyad Mahrez oo Leicester iyo Man City Ashley Cole oo Arsenal iyo Chelsea Kolo Toure oo Arsenal iyo Man City Kante oo Leicester iyo Chelsea Kaliji Arsenal iyo Man City Tavares Man United iyo Man City Nicolas Anelka Arsenal iyo Chelsea Hickenberg Blackburn iyo Manchester Magus Weiser Chelsea iyo Leicester Roberto Hus Chelsea iyo Leicester James Miller oo Man City iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool horyaalka kubadda cagta ee dalkaasi Ingiriiska isagana la qaaday marka waxa ay u ahayd marka la fiiriyo arin ay aad Premier League xil ciyaareedkiisa la soo gabagabeeyay ay u ahayd marka waxyaabo badan ayaa laga qoray kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ee Premier League 352 maalin kadib xil ciyaareedka 2019-2020 meesha ayuu ku dhamaaday oo ma jirto marka la fiiriyo koox qaab ciyaareedkeeda uu aad marka la fiiriyo وحما دhanka kalena Man City ayaa soo gabagabeysay 5 gool ay Norwich ay ka dhaliyeen laakiin xidiga reer Spanish ee lagu magacaabo David Silva ayaa ugu dambeyn soo gabagabeeyay wayihiisa ciyaareed ee horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ee Premier League isagoona uu macsalaameeyay dhammaan ciyaartooyda isku kooxda ahaayeen waxaana David Silva macalinka kooxda kubadda cagta ee Man City uu rajeeyay wanaag dhammaan inta uu Premier League uu joogayna qaab ciyaareed wacan uu sameeyay 77 gool iyo 122 caawin ayuu sameeyay ciyaaryahankan caalamiga ee wadanka Spain waana mid kamid ah ciyaartooyda rikoorada fiican ka haysta 309 kulan ayuu u saftay kooxda Man City 213 gool ayuu gaaray 93 gool ayuu caawiyay afar horyaalna waa uu la qaaday sida darteeda wuxuu kamid yahay ciyaartooyda ugu fiican ee horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ee Premier League xirfadiisa ciyaareed 434 kulan 77 gool 140 caawin 4 koob Premier League 2 FA Cup 5 League Cup iyo 3 Community Shield 10 sano wuxuu soo gabagabeeyay way ciyaareed aad u fiican uu soo bandhigay ciyaaryahankan lagu magacaabo David Silva sida darteeda horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ee Premier League ka sheekeyntiisii ayaa halka ku gabagabeynayna